waddanka Ruushka ayaa weerar iska caabin ah mar kale ku qaaday dalka Ukraine. Mas'uuliyiinta dowladda Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu xalay weerar ballaaran uu ku qaaday dalkaasi, iyadoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo lagu garaacay magaalada caasimadda ee Kiev. Duqeymahan ayaa la sheegay inay markaasi lagu dilay 4 qof, sida uu sheegay duqa magaalada Kiev Vitali, oo hore markaasi uu sheegay in 20 qof ay ku dhaawacmeen caasimadda. Duqa magaalada Lodzysk ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi ayaa sheegay in Ruushku uu u adeegsaday weerarkooda 15 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn iyo 6 gantaal, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen 5 qof. Horaantii toddobaadkan, Donald Trump oo wada hadal khadka telefoonka la yeeshay Vladimir Putin ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka uu wacd ku maray inuu ka jawaabi doono weerarka dhowaan ee Ukraine ay ku qaaday saldhigyada cirka ee Ruushka, iyadoo oo markaasi u adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.